Maradona wuxuu ahaa saaxiirkii ugu horeeyay ee kubadda cagta ka hor Lionel Messi waxaana uu lahaa xirfad sare oo aysan jirin cid istaajin kartay waqtigii uu ahaa xiddig kubadda cagta ciyaara balse ugu dambeyn waayihiisii guud ahaan caalamka ayaa soo dhammaaday waqti yar ka hor geerida Maradona ayaa ruxday caalamka kubadda cagta waana mid dhalisay magaciisa xalay ilaa iyo waqtigan lagu qoro bogagga hore ee jaraa'idada ugu caansan caalamka dadka qaar waxay isweydiinayaan kumuu ahaa Maradona imise qof ayaa haysta diinta aan xaqa ahayn ee Maradoniya miyayse jiraan dad alla ka furto oo caabudo ninkan sida Fircoon oo kale maxay tahay sababtu u yahay xiddiga ugu wanaagsan taariikhda kubadda cagta sida la sheego Real Madrid iyo Barcelona kooxdii ayuu taageeri jiray ka hor inta uusan si kadis u dhiman qayb ka mid ah orahyadii uu ku saadaaliyay dhimashadiisa kooxdii ugu dhaweyd ee England ka dhisan ee uu ku biiri lahaa miyuu ahaa daroogiste sirta ka dambaysa dhimashadiisa iyo xaqiiqooyin laga yaabo inaadan weligaa hore uga maqlin Diego Armando Maradona inta aanan guda gelin warbixinta halyeeyga kubadda cagta Maradona ee dhawaan geeriyooday fadlan like saar muuqaalkan si aad u ogaato xaqiiqooyin ku saabsan Maradona inaguna aan u soo badino muuqaalada ka hadlaya taariikhaha kubadda cagta iyo hadiiba aad ka mid tahay saaxiibadeena ugu dhow u sheergalay asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga magaciisa oo dhammaystiran waa Diego Armando Maradona kaasi oo dunida ku soo biiray 30 Oktoobar sanadii 1960 kama reebi karno waqtiga uu dunida faaruqay maadaama uu geeriyooday 25 November sanada 2020 isagu wuxuu ahaa xirfadle kubadda cagta ah oo reer Argentina sidoo kale macallin kubadda cagta ah waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicneed ee abid soo maray kubadda cagta hadiiba uusan ahayn midka koobaad ee la isku raacay haddii aan isku dayno inaan sharaxno Maradona oo aad doonayso inaad si fiican qeexitaankiisa u ogaato waxaad u baahan tahay kaliya in maskaxdaada uu ku soo dhaco Lionel Messi xaqiiqatan Maradona wuxuu ahaa Messigii qarniyadii hore orodka awoodda khiyaanada iyo ka duwanaanshiyaha kuwa kula jira garoonka gudihiisa haddii aad saacad ka mid waqtigaaga daawatay Lionel Messi xaqiiqatan waxaad daawatay Maradona marka laga hadlayo siday isaga shabahaan qaab ciyaareedka Maradona waxay dadka qaar ugu yeeri jireen xilligii uu xiddiga ahaa El Pibe de Oro taasi oo la micno ah cunugii dahabiga ahaa dadka qaar waxay isweydiinayaan kooxdii uu Maradona taageeri jiray kulamada El Clasico inkastoo uu Maradona taageero weyn u yahay Lionel Messi oo ay isku xirfadii dhalashay yihiin haddana marnaba ma uusan qarin jirin nacaybka uu qabo kooxda Barcelona isagoo taageeri jiray Real Madrid waxaana jirta qiso ka dambaysa nacaybkaasi sida taariikhda ku xusan Maradona wuxuu u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Barcelona intii u dhaxaysay sanadihii 1982 ilaa 1984 balse waayihiisii kooxda Barcelona kuma aysan soo dhammaanin qurux iyo farxad kadib dhaawacyo soo gaaray iyo isku dhac u dhaxeeyay isaga iyo macallinka kooxda Barcelona khilaafkaasi kadib Maradona waxaa loo diiday inuu kooxda xitaa isaga tago dagaal dheer iyo bahdilid kadibna Maradona wuxuu aaday kooxda kubadda cagta Napoli halkaasi uu ku xariiqay taariikh weyn Maradona ma jeclayn Barcelona waana sida uu ku kashafay boggiisa xasuus qorka ah saxaafadda ayuu ku horqiri jiray in Real Madrid ay tahay kooxda fiican xitaa iska daa wax kale gobolka Catalonia ayuu weerari jiray isagoo amaanaya caasimadda Madrid Maradona waxaa lagu tuhmi jiray inuu daroogisto weyn yahay kaasi oo cabad daroogada nooca ugu halista badan ee kookiinka loo yaqaano waxaana taasi ay keentay in Maradona arrintaasi wax badan laga weydiiyo isagoo yiri Nunes oo ahaa madaxweynihii Barcelona waxa uu sheegay inaan ka codsaday inuu ii iibiyo maadada kookiinka oo ah darooga mid ugu halista badan laakiin anigu waan ka murugaysanahay inaan aado caalamka maandooriyaha anigu ma dhahayo wax kasta ayaa been abuur ah laakiin isticmaalidda maandooriyaha nafsadeeda saameyn kuma aysan yeelan xirfadeyda kubadda cagta waxaana tusaale idinkugu filan wixii aan ku xaqiijiyay naadiga Napoli Maradona wuxuu xulkiisa qaranka Argentina u qaaday koobkii adduunyada 1986 waxaana uu halkaasi ku muujiyay halyeennimadiisa qaran kadib hanashadiisii koobkii adduunyada Maradona wuxuu ku dhawaaday inay soo iibsato kooxda Sheffield United oo ka mid ah kooxaha ugu liita waqtigan kubadda cagta England Maradona inkastoo ahaa xiddig mucjiso oo aan loo babacdhigi karin haddana wuxuu ku guuldareystay waayihiisa macallinnimo mana uusan ahayn macallin la jeclaysan karay marka dib loo eego diiwaanka guulihii iyo khasaarooyinkii soo gaaray intii uu maamulaha u ahaa kooxo badan oo waddankiisa ah iyo weliba xulka qaranka dalka Argentina
Maradona waxa uu ka dhawaajiyay orahyo badan oo taariikhda galay waxaana ku jiray kelmadihiisii haddii aan geeriyoodo waxaan jeclahay inaan dib u soo dhasho mar kale si aan u noqdo xirfadle kubadda cagta ah weliba aan u noqdo sida Maradona aan u ahay oo kale badankeen ma ogin inay jirto diin la yiraahdo Maradoniya oo ay jiraan dadyow adduunka ku nool oo caabuda Maradona bartamihii sanadii 1986 intii uu socday koobkii adduunyada Argentina waxay wajahday waddanka Ingiriiska Maradona waxa uu suuro gashay inuu guusha siiyo waddankiisa gool uu dhaliyo xulkiisa Argentina dadka qaar waxay moodeen in kubaddu uu madax ku dhaliyo balse waxa xaqiiqo ahayd inuu Maradona kubadda gacanta la kaalmaystay iyadoo aysan jirin cid fahantay xitaa garsooriyada kulanka Maradona waxa uu yiri ciyaarta kadib gacanta Ilaahay ayaa dhalisay goolkan ereyadaasi oo ahaa gaalnimo xadka dhaaftay waxaana markaasi kadib bilowday diinta Maradoniya oo ay haystaan dadyo fara badan oo hadda adduunyada ku nool 30 Oktoobar sanadii 1998 saddex nin oo kala ah Hector Compomer, Alejandro Veron iyo Hernan Amis ayaa waxay isku afgarteen aqli xumadooda inay aas-aasaan diin cusub Ilaahiisuna uu yahay Maradona halka lagu caabudana ay tahay kaniisadda Maradona waxay dhigeen xeerar badan oo ay adag tahay in laga gudbo balse waxa ay qeexeen in cibaadada diinta Maradona ay asal u tahay in kubadda cagta qofka aysan ka ahaanin afka baarkiisa Maradona wax walba kaga qiimo badnaado sidoo kalena ay ku cibaadaystaan waxyaabo ay ku sheegeen inay cibaado yihiin sanadii 2008 sida la sheego tirakob lagu sameeyay dadka haysta diinta Maradoniya waxa lagu ogaaday inay gaarayaan 120,000 oo qofood inkastoo tiradaasi ay tahay wax u muuqda in la boonbooninayo diintan waxa ay leedahay 2 maalin oo ciid ah sida la sheego maalin waa maalintii uu dhashay Maradona halka maalinta kalena ay ahayd maalintii uu koobka adduunyada waddankiisa u qaaday hadda Maradona oo ah xiddig kubadda cagta ah waxa la hubaa wali in diinta beenta ah oo ay wariyaashaasi dhoodhoobeen ay taageereen isla markaana ay caabudaan kumanandada oo hadda adduunyada ku nool alla maxay aqliyad xun yihiin kuwaasi waxaan kala jeedaa kuwa caabudaya qof isagaba dhimasho iska badbaadin waayay yeelkeedii wiilkii lagu xaman jiray inuu daroogisto yahay kii lagu tilmaami jiray mucsidii kubadda cagta wiilkii necbaa Barcelona haligii taariikhiga ahaa ee la isku raacay inuu yahay xiddigii ugu wanaagsanaa taariikhda kubadda cagta ugu dambeyn waa uu geeriyooday haddii aad warbixintan daawatay adiga ahaan magaca Maradona sanadkii ayaa kugu horeysay inaad maqasho haddii aad xasuustaada dib u celiso ma aaminsan tahay inuu yahay xiddigii ugu wanaagsanaa ee kubadda cagta soo maray aragtidaada inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiga waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan